ciidanka booliska degmada Wajaale ayaa maanta waxay gacanta ku soo dhigeen dhalinyaro sidee xashiishad oo ka ganacsanayay waxayna sheegeen in dhinaca Itoobiya laga soo galiyay xashiishadan oo saameyn xun ku leh caafimaadka maskaxda aadamaha waxayna kamid tahay maandooriyaasha raadka kaga taga maskaxda qofka qabatima dhalinyarada lagu soo qabtay xashiishadan waxa wajiyada ka muuqday walbahaar iyagoo ka warwarsan talaabada dawladdu ka qaadi doonto taliyaha saldhigga degmada Wajaale gaashaan la dhexe Maxamed Casi iyo gudoomiye ku-xigaha Wajaale Mursal Nuux Ismaan ayaa si adag ula hadlay cid kasta oo lagu qabto inay ku lug lahaayeen ka ganacsiga xashiishada iyo khamriga in lala tigsan doono sharciga iyo qawaaniinta dalka uga yaala arrimaha mukhaadaraadka. Isla galab markay saacad ahayd shantii waxaanu qabanay 3 kiilo oo xashiishada waxaanu ku qabanay 2 nin labadan nin aanu ku qabanay waa 2 nin oo Itoobiyaan mid waa Soomaali Itoobiyaan midna waa Xabash aan oo afka garan maayo labadan xashiishada waxa kala soo talaabeen daanta markii ay magaalada soo galeen baan warkooda helay marka araseenka iyo 2 askari baan u diray sidaas lagu soo qabtay xashiishaduna waa taas oo arkaysan waxay muddo badan baan keenaynay bay yiraahdeen muddo badan baan keenaynay markii aan nimanka waraysi ka qaadnay aan wax ka qoray muddo badan baan keenaynay marka waxa weeye dadweynaha reer Soomaaliland ama reer Wajaale waxaan ogeysiinayaa in xashiishadaasi ay ugu badan tahay in laga la shaqeeyo xashiishada iyo khamriga labaduba way ugu badan yihiin in laga shaqeeyo khamrigu imka iyo khallidiba waa laga yar yihiin laakiin xashiishadu iyadu ma muuqato meeshan way ku badan tahay marka waxa weeye in laga la shaqeeyo xashiishadaas oo nala qabto si aan dadkeena aanay inoogu dhaafin dalkeena iyo dadkeena aanay u soo dhaxgelin. السلام عليكم. halkan ku sugannahay waa saldhiggii dhexe ee degmada Wajaale aad iyo aad baan u hambalyeeynaa taliyaha saldhigga degmada Wajaale taliyaha ku-xigeenka araseenka dhammaan ciidanka ka howlgala degmada Wajaale ee booliiska waan hambalyeynayaa run ahaantii waxaan ku hambalyeynayaa habeen iyo maalin heeganka ay ugu jiraan nabadgelyada waxaad arkaysaa nimanka xashada aynu arkayno waa daraagis weey waxa loo gudbinayay حق عاصمة لو قدني وحنا للدنيا إنا ما كلو خلخليو وحنا وقدية شخصياتك عم بدك وحاك شقيستا تراجسك وحنا وقدية إني هو توبة حديك لا إني لا كل مدونان وحوي إن لقى قال الدونو طلابه شرعي وافقسن لقى قال الدونو ذاتك جديدك قاضي يا وحاسين الجديد اللي ده دينه هو يجي الجديد كجلدون إيو يعني حمارة أنت بوحوي وحن وجدينا هنا وحيالها مخاطراتك أي سوق هذا هذا خمرة تاي هذا حشرة تاي واحد كستعيدك بليس كهيجن بويا حتى إنه ما ممكن وتشالنا هاي فرحت بينات هاي عيدك بليس كوحوي وقع معه هيجوي marwal buu waxa weey waan garab taaganahay ayeshe maaha markii ugu horeysay ee xashiishad lagu qabto waxa aalaaba magaalada Wajaale soo noqnoqda qabashada mukhaadaraadka oo baryahan dambe si xawliya ugu soo qulqulaya dalka iyadoo laga soo gelinayo magaalo xuduudeedka Wajaale oo xad leh dalka Itoobiya ee aynu jaarkanahay dhawaan ayay ahayd markii Wajaale lagu qabtay hilib isugu jira kaliyo iyo beer lagu sheegay inuu ahaa hilibka doofaarka iyadoo arintaasina ay kala sheeki iyo jahwareer ku abuurtay bulshada dalka Wajaafir Cawle Rari shabakada wararka ee Gabiley.net magaalada Wajaale ee gobolka Gabiley.